الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. وسلسلة محاضرات كتاريخية وانا فردقي أفراد وحينو كقور رميني دعدوين دعي وحينو كقول لنا هاي إن وحلا قبرته مستقبل كينا يا مستقبل كومد الإسلام كبا اللي قو يفتين صدو ووحي وناقي دعينا لقدم بيلقاته وحي قلد يمينه لقل يحضو إلهنا سبحانه وتعالى أساس لها سنة الله التي قد خلت في عباده. marka sunnada ilaahay baa laga baranayaa taariikhda. waxaynu soo gaarnay oo inoogu dambeysay iyagoo dadkii muslimiinta ahaa laba jeer oo ugu dambeeyayba ay nimankii muctadiinta ahaa ka guuleysteen markay asbaabtii quwada qaateen. sababaha lagu guuleysto markay qaateen way guuleysteen. ilaahayna ballankiisu waa u oofiyey. walan yukhlifa allahu wacdah. ilaahay ballankiisa ma jabiyo. haddaad qaadato asbaabta lagu jabayana waad jabi, haddaad qaadato asbaabta lagu guuleysanayna waad guuleysan. waa sunno ilaahay. السنن الكونية ما يقانان معتقدك عقيدة ما تقانو ما تقاني إلهي عدو جعليه عدو نعبيه. والسنة كونية ما أنت وقرنا إنسان نيك استود دالة وبيرتي سبيرته وبحضة عدو دونها النوض كي دالي وهي اسكتوا الفريانة وما بحضه كائنا من كان عدو دونها النوض. مركز السنة كونية والنوع عصو كلموية. وعن سوق قرنية وحب الدنيا الدنيا تعالك قاضي وقنيمتي لسوق بصدي أو خطرتي كهرريث من اللي أركي واي تعالك الدنيا اللي كوكلا تجي لسكون نعي نيكي ماشي وقحوق بدنانا وكدو ضيبا فرصة بيقول نقطي مجرم كي وينا تشينكيز خان بقر كي تتارك يسوق الملعنصن أي صدقاتي دون ينا إنه كارغوستو نما كان علكي يصير لبتشير شبيي كشفي عورده دفيدي تاتنا جلال الدين وحسكدي إنه الرجل يسكد بريتو نما كي وراقه وقرأ كوي عرفنا رالي قليو لكن ودعي ويدي سوى البو يسكدي مركو أركينا نيس أربوه هجاجيني أيا وحد معين الله ما يرستو أو أنتي حالته هجاجيسو أنا نين نسكهر منين ما رأيسينا وسعواي وايو نين كان وحد دون يإنه نمانكا تلابك قاضو لبتشير علكي سجبيي مركو أركين لجوسو كديي أيوس كبارة وحي أودي لهي سيي يوحي رجل مال الجريوس كباري ويسكهر يمادين سنة كي لح بقول يسديت وانا آخر كيس أو كوبي أجن كون لا بقول لا كوبي لبات عيدا كيس هو هبيي وحي شوقي بسكو هبيي ميمرة يمدك قلبي بو سميي. لكن كل هذه وإقبام ويدي حول وايو عيدا كان واكبدنا وانا كحوق وينا نيكي لورن شري ملك خان هوشا نبكى بلابنتي دمع كاني halkaasuu ku geeriyooday dagaalka bilowgiisaba ayuu ku shahiidaya. waa la jabiyay nimankii Jalaaluddin al-Khawarizmi iyo culkiisii waa laga xoog batay. wuxuu la baxsaday 700 oo nin. taariikhda lafteedii waa soo noqotay sidii aabihii oo kale ayaa loo daba galay. markaasuu kolba meel ka dhaqaaqa meeshaasi waa laga daba yimaadaa haddana meel kale u dhaqaaqa waa laga daba tagaa. aakhirkii ugu dambeeyay هندي يسنعبي علكي هندي وقلب النقضي هل قصة لك هذا. لكن تنكيس وحو مرخاتي كعي إنه نن هذا جو جيسي مركا الله شيء سنة وحولن تري هكذا يكون الرجال الشجعان ننكني ونك الله بتشير تبي علكيسة والرجل وقواص كلورنش. مرنا وحول ما أسعد الأب الذي ينجب رجلا قويا شجاعا كهذا. أباها نكنا وكلاد علي وأن هذا لبوش مركا ninka xataa ragga ah
colkiisu waa u markhaati kacaa ninka colka yihiini wuu u markhaati kacayaa ninkaasi halkaasuu galay oo uu ku galbaday waayo dhibaatadii daba socotay iyo colaaddii hindiya u taallay waxaa adkaatay dhibaatadii daba socotay iyagii buu galay waxaa bilowday inuu xaggaa u jeesto Jinkis Khan waqooyi galbeed Azerbaijan buu u jeestay magaalada la yiraahdo Maraqa ayuu isweer ka qabtay mushkiladu waxay tahay magaaladan qof dumara ayaa madaxweyne ka ah waa qof dumar ninkii ragguba u taag waaye ayaa kuwan waxa uu sii dheeriyay iyaga qof dumara haysataba majaaniqdii buu ku garaacay ehelkeedii baa soo baxay waxa uu ku saliday ciidankiisa ugu talagelin maxaabiistii uu watay muslimiinta ayd buu la dagaalama kii dagaalami waayana waa la dilayaa waa laba dhacba ku daran marka hore waa maxbuus waa dhimasho joog waxa lagu isticmaalayaa inuu dagaalka ka qayb galo hadduu dagaalka ka qayb gali waayo kuwan ka dambeeya ku dilaya war cajiib weey mar alla markay isku jabeen labadoodii ayuu aakhirkii dambeysay baaqigiina isagu laayay magaaladiina dab uu suray waxyaalaha cajiibka ka dhacay waa wixii hore dhici jiray waxa dumar iyo caruur iyo odayaal iyo ciroolo la leynayo waxa mumtalakaad iyo hanti la baabiinayo aakhirka ugu dambeeyana dab la surayo sidoo soo socday wuxuu soo gaaray shimaal al-Iraq magaalada Arbil leeyda imka ay kurdidu degantay caasimadda oo ah ayuu soo gaaray magaalada waxa joogan la yiraahdo an-Nasir lidiinillah oo khaliifkii Cabbaasiyiinta ah ayay hoostiisa tagtaa ninkaasi wuxuu arkay xaaladdu inay xun tahay nimankii tataarkii la maqli jiray xuduudiisa taagay waa markii koobaad wixii sanada dhacayay wixii dhibaato dhacaysa sanado kumu taamila qaada mu diyaar garoobin colkiisa mu dumin umada mu baraarujinin allahumma salli ala Muhammad wax diyaar garoob mu sameyn wuxuu ku war helayo hada waa laba sanadood oo ala xaaliya wixii dhacayay maanta iyagu dul joogto khaliifkii baa wuxuu istaagay inuu umada baraarujiyo umadana waa umada waftay oo bari ma ay ka tagtay waa khaliifatu dawla al-Abbaasi ayaa wuxuu ugu tala galay inuu colka u dhaadhaco oo kiciyo wuxuu helay muu helin 2,000 3,000 10,000 800 nin khaliifkii dhamaa 800 nin buu helay wax dagaalamaya oo jihaad diyaar u ah 800 buu u dhibay nin Mudaffaruddin ninkii baa wuxuu la tagay meel Arbil ku dhow ayuu la tagay wallaahi الناصر لدين الله ولا الناصر لدين الله وحلا وحو دين النصرين ما جرت نبا وحو كو غبي برغي اندلس قلبيد كا اسلامك تولوي بي قبصدان مغع وين وي لبخان المعتد لدين الله المعتمد بامر الله تتوحد ومما زهدني في ارض اندلس القاب معتضد فيها ومعتمد القاب مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد أندلس وحن كنا عيبول وأن كجا ساهل ماشى ونولس قيبيون والباب تولوين كيسي أيو دولة كان اجتماع وين وقاتبول مركا وحن كوش بهيبولي بصد أنت يسبو في صي مرايس كنت أوانا يسول اللي بحباني بصد هذا يسبو في صو اللي بحمن غنسة وما بصدي بحانسة نمان كانوا يسبو فيين مرعيوه وين المعظم المستعين بالله المعتدي بدين الله هذا نوح الله حميشه كوهيا ما جرته وحنبو المهم سيدي بقول جهاد كو ديار كاها شلي محن سمرين مغالوينka qaar oo diyaar garoobay oo jihad u diyaar garoobay inaan shaqaba lagu darsan 800 markay halka tageen nimankii tataarka ahaa ee boqolaal iyo kumanaanka leyn jiray way ka walaaceen ka istaageen talo maxay uga istaageen كو تاريخ الدولة العباسية وتاريخ فوق ملا وحي سلاهدين وحن ماها عيدن كي دولة دي وإن يروه الرعبي سلاهدينو هيبدي تاريخ أي كبقين وحكالو إيادنا صورة قلعة عراق ضد يدو يوي بوحدها الكاسي تاقنت مركا وحي سلاهدين هذا هرو وصعوتان عراق wax badan ka keeni meysano qodobka labaad ee kaga istaagan baka tasaddexaad qaatay waxa weeye dawladda Cabbaasiya inaan toos la isugu dhicine
hareeraheeda la fagto oo kolba tuulo kolba gobol kolba dhinac la yaryareeyo markay hadhow yaraatana aakhirka ugu dambeeya gacanta la saaro waxa kale ay qaateen qodob afraad oo odhanaya in xulafooyin la sameeyo dowladaha yaryar ee hareeraheeda in laga gurto oo la xulafaysto qodobka shanaad ee khatarti waxa weeye in jawaasiis lagu dhex samaysto waana sameeyeen ficlan saasay yeeleen way noqdeen arrimaha awgeedna waa u laabteen markay noqdeen waxay gacanta saareen madiinatu hamdaan oo horena ay gacanta u saareen ayaa imikana mar labaad alla waxay sameyn kareen sameeyeen eeraan bay ku taallaa irdabiil iyana saas leeg tibriis shalay waxaan soo marnay magaalada tibriis oo u haysan ilaa usbek ibn al-bahlawaan oo intuu hadiyado fiican siiyay iyo xoolo ay dhaafeen shalay waxaan nidhi dar ilaahay uma dhaafine kolleyba way kaydsanayaan oo ku soo laabanayaan sidii baa dhacday doorkan way ku soo laabteen laakiin maxay isbedelay ninkii mujrimka ahaa ee faasiq ahaa ee khamriye cabka ahaa ma joogo ee markii hore laaluushay iska tegey nin baa haysta leedha Shamsuddin ad-Dughra'i ninkaasi sanad iyo waxoogay baa laga maqnaa sanad iyo waxoogaygii wuxuu diyaariyey dhalinyaro carbisan oo jihaadka ku carbiyey ummadda bulshaweyntiina wuu tacbiyey moralkii iyo muruqoodiiba uu diyaariyey wuxuu kula hadli jiray laa yamuutanna axadun qabla ajalihi war midna dhiman maayo xilligiisoon gelin buu ku odhan jiray kolleyba geeri bay idiin tahaye geeri sharaf la aan wada dhimanno ummaddii wuu kiciyey markaa dhiiggoodu kiciyey ummaddiina waxa u dhaqaaqeen inay magaalada adkeeyaan gidaaradeedii iyo qalcaddeedii iyo darajeeyo waaweyn oo la qoday ayay diyaarsadeen hub waxay heli kareen bay diyaarsadeen raashin iyo ceelal bay qoteen magaalo diyaargarowday bay noqotay markuu Genghis Khan waxaa maqlay waxaad u malaynaysaa ninku waxa laga filayaa intuu cadhoodo oo ismadax maro inuu wax alla wuxuu awood hayo geliyo deetana cagta dhulka cagta mariyo taasi ma dhicin waxa xaqiiqowday xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam nusirtu birru'bi masirata shahr waxa laygu hiiliyey argagax bil meel laga socdo layga argagaxo intaa yare magaalada joogtay diyaar garowday ee ilaahay isku xidhay ayuu ka baqay amarkii allay qaateen waaciddu lahum mastada'tum min quwwa wa min ribaat al-khayl magaaladii xaggeedaba mu dhaqaaqin iska dhaaf niman diyaara oo doonaya inay dhintaan markuu arkay kuwa dhimashada ka cararayuu raadsanaya laakiin in isagoo ku soo socdo dhimashada cidina ka hortagi mayso iska dhaaf magaalada la yiraahdo bulqaan oo aan wax badan ba u jirin dhaqankoodii ma yeelan sidii bay isaga bahardaade iyadii sidii si lagu ku sameeyay xisaar ku sameeyay ayaa xoog lagu jiiray wax alla waxay sameyn karayeen ila dhaqankoodu maanta baran mayne dil iyo dhac iyo maxal baabiin iyo gubid magaalada amsaxay ka dhigeen way dhaafeen magaalo yar oo ku xigto la Kanja iyadana agteeda may marin maxaa yeelay sidii Tibriis ay diyaar garoobeen qoladana way diyaar garoobeen waxay diyaarsan kareen bay diyaarsadeen dagaal iyo jihaad bay ku tala galeen waa sunna ilaah inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun halka maxaa laga garanaya waxa dad la leeynayay la baabinayay ilaahay ma dulmiin iyagaas dulmay haday sidan yeelayeen labada magaalo yeeleen oo ugu horeynba ay balaayo u toog hayn laayeen xalida khayr waxba kuma yeelo shar u toog hay shar ku tala gal khayr waxba ku yeeli maayo haday ku tala gali laayeen waxas ma dhaceen haday ilaahay nafta u hibeyn laayeenna oo ay ogaan laayeen adduunku inuu maalmeeyahayna iyadana tari ma dhacdeen waxa kale ka tageen waxa la yiraahdo sunnatul mudaafa'a ilaahay adduunka wuxuu dhigay waxa la yiraahdo in la isriixo oo qolo mar la cishado hadii qolo kaliya awood badato waa la baabiyaa adduunka walawla daf'u allahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismu allahi kaseera wa la yansuranna allahu man yansuru inna allaha laqawiyyun 'aziz wixii masaajid iyo madaaris iyo guriga la baabinayay sunnadana meesha ka maqnay sunnatu tadaafu' waxaadin qolaba qolo lagu riixo tiina waa la waay inagoo kala laga yaabaa taasi maanta inaynu kulaalayno smoke
حال اسمه قال كيف أصل اسمه نوجا وحن لنا بقول يسد المليون بان لا شارني وحبشية إننا وحير بيننا هايو فرقود كودا وحلا وحين كنت لقى لنا فرعس بيننا إلهي نقوم صلي ده دين نقوي مادان عيد وعيد دفاعي كرتا آد بينه وغيرتي ما شيء غير الميجا قيل شرها اسكتها برن ما شيء أما عرور مقالو اللي سهلوا تاريخ طبعا أخرينا وحوي شر والله قلت لك لا هذه من بواي شركه يحبك ويا الميسي لكن مركور وين درين سنة تايو وين تقول كذا يلتا نمك بقالة يرينا ودافين waxay gaadheen dhul oo taqaanaan oo aynu dagaaladii ku baranay Chechnya iyo Dagestan laba jumhuuriyadood oo iminka Ruushka ka mid ah islaam weey kuwaana sidii silag bay yeeleen way baabiyeen waliba tuul magaalooyinkooda si aad u arxan daran ayay u laayeen xaggaas u socdaan iyo Ruushka ku socdaan iyagina waa sii dhaafeen waxay gaadheen koonfurta Ruushka markay gaadheen afaaciishay sameyn jireen bay sameeyeen halka marka la marayo waxay haystaan taqriiban 12 dawladood dhulkood bay haystaan ka soo bilow China oo barka haystaan Ruushka oo barka haystaan Tajikistan Uzbekistan Turkmenistan Kazakhstan Kyrgyzstan Pakistan oo qoyb ka haystaan Afghanistan gabigeeda way haystaan Armenia Georgia Azerbaijan إيران بدن كذا أنت لبيه طبعاً كدل يسكفي يدي كودي أصل كه واحد بلودي سنة كي لح بقول يلا باتن مركا أنت هايستاني ولح بقول يسقال طبعاً كي لح بقول يلا باتن روش كي هروق سي سعودي سنة كان حق إسلام كوا كويري قال دي بيجي كنا قابين يعني كريستان كي أيها يجينا مصيبة دي كوريت وحلا الله ينيا والروش يكوي حاجة كسي حجر قلبات كها روشكي مدة بين السعودين إلى إياه وحي قارين مل ضرب سنة كله موسكو لكن وحكوا صباحني ملا إرادة ضعيفة البلغار أو ديار سن أو بيسن أو تابرن كوي بيسهله مركي كوبات روش كده حديث أما قلبات كانوا وجبيو برتسال وجبي سحنا والولاي وانا مركي صدحات لبا جيرو اسلامku uu jabiyay iyo markanoo ruushku uu jabiyay maqtala xoog badan ayaa la laayay dad badanna waa laga qabtay markaasay mumtalakaad badan ka yaaceen muslimiintu markay maqlaan cadowgiini baa la jabiyay oo colkiini baa ilaahay col ku furtay maxaa laga filay inay intay farxaan diyaar garoobaan talaabooyin siyaasiya iyo mid dhaqaale iyo mid military ba qaadaan ما يدعين يجي بس كم غنا لما وحي أود هيين إيه رجنما إيه فريدنما يجي يسوع ديك سنة ما يصحابين ما يوراني بريبو كهرية هاي كوسي تلاقله يجي بس كم غنا بل واحد عيوحو بحيي شيخ الإرادة راقب السرجاني المؤرخ عيوحو بحيي الحول السياسي وحول السياسة عوران سياسة إلا سياسة ضدين نقبتنا عادي وأنصعون هذا إلا أضينا يسق الله عم بدو صعنيسا وحوري نمك الأوريتي أركورج وتشورجيا وغدد قالها مسلمين تويسن عباية لكن عدو وده هلايو لبدو دو أسك حكا قري ما أنت إلا يسوسو دوادو وغيران بلايد اللوح حلفو بابي هاي تيمي دعينه نين أميرة أو هالكا هيستي الشام أيا ويراري يجي والله سكور ريقضي markii awoodii tataarka loo haystay labadii dhinacba iyaga isku dhameeyay waana la kala aamin ka baxay oo bari ka maalin qoladii shalay la istilayay bari ka maalin la isuma iman karo oo lama wada hadli karo qodobkaasina wuxuu tusayaa nimanaan indheer garad ahayn oo meel uu eegaya oo maanta ka fikiraya maanta ala yiraahdaa qofka ducagiisa eegayo ee hortiisa ma arki karo cagiisu eegay niman hoostooda eegaya oo maalintaas ka fikiraya oo aan mustaqbal iyo siday noqon doona aan hilaadin kareyn ayaa u ekaayeen qodobka labaad waxa weeye waxa soo baxay ninkii Muhammad ibn Khawarizm Shah Alauddin ee hawshu ka bilaabantay
inankiisa jalaaludiinna dhowaan laga adkaaday wiil kaluu dhalay oo jalaaludiin ka yar ayaa soo baxay oo la dhaqa Yaasudiin Maxamed ibn Khawaarzim Shaah ninkaasi Iiraan waqooyigeedu isku dubaritay waxoogayna galbeedka Pakistan ayuu iyadana waxoogay ka goostay gobolka la Kirmaan dawlad yar buu halka ka aasaastay waliba wuxuu noqday سد منيع بين التتار وبين العباسيين حدود أيوه نقضية دفاعية جدار دولة العباسية كحجة حقايا التتار بقر كي عباسيين هلكو فرح لا ونين كان حوجين لا يقول الله والله جهنم ما اللي يروح يسقدك بل نمان كم يسقدك ونين كان حاجة نقطتين أيوه سقي ضعيفين يا سقي أيوه حاجة كجرا يا أيوه وكنت قبنا يا حسمي نين كان يروح لي نين وابتيا أو لا يلاحظه ناصر الدين الطائسي أيا لا يلاحظه أبتجي ونروح عدايا وجيسيا والله تليوا نين كان أنت بدن بالدولة الله دسي تقال لنا له جامي وأنا أبتجي تتنا نين كيبو هوست كلا حديد بقول كي حباسين وراقو صدري ولا يروح وين يره مش هذوق قبصو أو أفكمبي أو انقلاب شو نينك نوي كوير ترتي فكرته وحول عد عاوي صوت تاجرته مرة لما ركوا يا رب بقول كي عباسيين تلا أنا كنت تاجرية أيو سجينة تبعينهم ماشي انقلابه هادو انقلاب الآيو ماشي بقفصل له وحوم بيحلك كان هادو هايستي هادو كان هايستو وحوم حمادين مو سمينه وحول سميسته قطاع الطرق ودد غار جويو أو الشيفة عيدا مو كحيستي صعوتة اللينية ومساكين تبرعدا وددك بابينيا مركاسو غادي بقر كينين ابتغي فعل لدا حن سميي علبو كسو بخيي ولا سلاي دغال ادق با دحمري اخر كي odagii weynaa waa laga adkaaday isaguna waa firxaday taas waxay keentay in muddo la isku mashquulsanaado nabiguna sallallahu alayhi wasallam waa kii xadiiska kulaha inna ash-shaytaana qad aysa أن يعبده المصلون شيطان وحو كقوستي إن ذاتك مصلين تي يعبدان ولكن في التحريش بينهم شيطان وحو أنو كقوسنين إنو اسكدروا شقديسو إن لعابدوا يكنتو قدبتي اسكدر بوضا اسكدر كي بعد عي قوة دي واحد كو مشغول شيء إنه يقو استقالان آخر كي وضيقوا ولا تبيي أذربيجان بو أرضي مركائمي كبا عالم إسلامي يدو الرمو وين لوضو قارون دولadaha kala ku mashquulsano midba mid uu cagaha jarayo ama boqolaha goynayo boqol jeer baaragteen waa tiyo ayada lafteedii weeye isma doorinin ibn Athir tamuarikhi weyna dhacdo cajiib uu kalkan ka sheegay wuxuu leeyahay waxay tusaale u tahay dadku markay diin beelaan adduunyada jeclaadaan sida ay u dhaqmaan nimanka la yiraahdo al-Kurj oo nin badan ii sheegay dawladda Georgia ayaa ninkii waxa ka dhintay boqorka ahaa gabadh baa u hadhay u dhalay inan u dhalay iyada madax noqotay madaxdii waxay yiraahdeen inaani noo ahaan mayso madaxe nin boqora guurso oo dalka maamula dalkeedii way soo weegtay waxay ku qanacday ka weydin nin la yiraahdo Muqisuddin Dughrul Basha oo Turkiya oo haysta Turkiya oo muslim ah ayaa wuxuu maqlay gabadhaas inay guurdoon tahay warqad buu qorayaa uu leeyahay inankayga curad ayaan ku dhisayaa waxay ku tiri inankaagu waa islaam annaguna kristan baanu nahay ka isma geyno kala diin baynu si yaro fudud buu yiri inankaygu uu kristaamoobaya u gaaloobaya si uu ku guursado odayga ku taliyay يينك كيالي يو عجيب سيدي باو دعدي ينا way soo dhaweysay uu gaaloobay islaantii buu guursaday meeshii uu boqor ka noqday muxuu ku ibsay diintiisii wax yar buu ku ibsaday adduunyaha ma mahadin laakiin muu mahadinin muddo markay isqabeen ayaa wuxuu ogaaday inay jeceshahay addoonadan qarsiga ka shaqeeya inay jeceshahay وهابينكي ميلا غارا iyo xiliya gaaray sarkaan warar badan buu maqlay dhegtaba loogaba duwin ila waa soo galootiye shalay buu soo galay shalay buu yimi xoolaska tirmaayo
wararkii baa ka dhagbatay uu damcay inuu raadiyo wuxuu ku soo baxayba firaashkiisii oo la wada jiifo waa sidee buu loo kulaaday waxay tiri inaad sidaa ku qanacdo iyo in arrimo badan talaabo laga qaado kala dooro uu yara noolaaye ku qanci maayo midimku muxuu odhan lahaa ya jannadii yaraan iskaga jire adna waxaaga mid maanta joogaa qiiro iyo xiniyamaba yeesheene kan wuu sii noolaa wuxuu idhi raalli kubay markii bay amar bixisay ninka ha la qaado tuulo cidlaha lagu xidho halkaa lagu xayiro nin kalena iska guursatay khasara addunya waalaakhira dalika huwa alkhusraanu almubiin adduunkiina waa khasaaray aakhiradiisana waa u khasaaray waxay tusaysaa siday diintu ugu yar tahay innagaba qaar badan oo tahriibay soo looma odhanin furin yar iyo laxoox yaroo la siiyey cunno yaroo kuyuu kiniisad u galaan ayay qaar badan u gaaloobeen qofku markay diintu la noqoto waxa ugu sahlan maxay noqonaysaa shayga ugu dambeeya la baayaco ee badka la dhigo ayuu noqonaya walciyaadu billaah sanadkii 620 sidaa kuma dhammaan waxaanay carabtu tidhaahdaa almasaa'ibu laa ta'tii furaada balaayadu midhmidh uma timaadee koox ba u timaada iyadoo tataarkii iyo balaayadii haysato iskhilaafkii iyo furqadii ay jirto ayaa roobabkuna yaryiin ayuu bahal ayax la yidhaana yimi xalla wixii beera la beerayey iyo wixii dalag la sugayaya ayaxii baa ku degay meesha la yidhahdo ciraaq iyo jasiirad diyarbakr iyo shaam iyo faris wax walbaaba qaali bay noqdeenoo koombadii baa 5 jeer shallaabantay iyadoo xaalad adag lagu jiro ayaa waxa bishay sanadkii 620 hijri xilliga ninkii la oran jiray qiyaasudiin abtigiina waa ka adkaaday dawladdiina waa u yar cuslaatay dhul badanna waa qabsaday xoog buu yeeshay isagana waxa ku kacay mid ka mid ah madaxdiisii oo la oran jiray Saadudiin dagaal waxoogay galeen aakhirkii Iiraan koonfurteedii bay qaybsadeen way heshiiyeen waa dalka qaybsan waxbayna istilin way qaybsadeen sidaas dabeetana waxa kulaalaya Genghis Khan iyadoo sidaa tahay ayaa wuxuu soo diray Genghis Khan firqad yar oo 3,000 ciidan 3,000 oo nina waxay ka bilaabeen ray oo hore u soo marnay dib bay u galeen way baabiyeen saawo magaalada labay galeen qaashaan bay galeen hamadaan waa markii saddexaad ee tataarku galaan ilaa marka mar lagu galo ugu yaraan mar labaad lagu galo mar saddexaadka ama deeskaga guur ama difaaco waa markii saddexaad ay galaan intaba waxay ku sameeyeen waa 3,000 oo nin oo kaliya wixii ay sameyn jireen bay sameeyeen iyagoo bad qabana Genghis Khan bay ku laabteen sanadkii 22 iyo 22 way yaraatay weeraradii tataarku aad buu yaraaday waxay ku mashquuleen inay dawladdii iyo dhulkay qabsadeen si fiican gacanta ugu dhigaan dawladdoodana adkeeyaan iyadoo sidaa xaaladdu tahay ayuunbaa waxa soo noqday Jalaaludiin ninka garanaysaan ee fadalka la galay Hindiya ayaa soo halkii qaban waayay 5 sanadood buu ku maqnaa dhulka uu soo laabtay markuu soo laabtay koonfurtii Iiraan ayuu hawlihiisii ka bilaabay markiiba dhul iyo ciidan iyo waxba isku dubaritay markuu halkii yimi walaalkii lamu xidhiidhin wuxuu la xidhiidhay ninkiis hayeen Saadudiin kii buu la heshiiyey yiri adeen wada heshiina walaalkii la wada dagaalamayna 5 sanadood halka ku maqnaa waxba ismu xisaabtamin waxba ismu weydiinin halkee laga raacay mu oran aabihi tii uu ku jabay isaguna ku jabay ay wali dabada hayaa oo maxay ah tamci siyaasiga ah iyo hunguriga adduunyo halku umada ka dhisila ee wax midayn la isagii baa wali dagaal dabada haya dagaal sokeeye ma aha dagaal kale oo gaala la galay sidii baa u dhacday waxa ka sii daran walaalkii waa la dagaalamaba dhulka la yiraahdo galbeedka Iiraan oo dhan buu ka qabsaday waxa uu istaawiye awood durba waxaan sanad gaarin awood fiican buu helay xagga uu muusi soconay dib uu soo majiray Ciraaq iyo dawladii Cabbaasiyiinta oo ay culahaayeen ayuu ku soo noqday dagaal buu ku cilaamiyay oo fiirso walina tataarkii waa u dhowyiin kaba foga haddana muslimiin buu ku jeedaa wuxuu soo gaaray magaalada Basra ee nagala timirta leenooga keeni jiray ee dumarkeena ay u bixin jirnay Basra tiibu soo gaaray 2 bilood buu
godoominay qaban kari waayay dib uu ga noqday Baghdad hareeraheeda ayuu tuulooyin ka qabsaday waliba intan wuxuu la soo baxay berigi hore waxa muu lahayn intan uu soo noqday sidii tataarku wuxuu leeyahay shicibka deyn maayo oo dumar iyo rag deyn maayo waxbuu leeyahay maaruqaya waxaan moodaa in nooc taxawuli ku dhacay isbedel jadri oo ku dhacay aakhirkii wuxuu soo dhaafay xagga waqooyi teetana wuxuu qabsaday dhulkii waqooyiga Ciraaq oo dhan ayuu qabsaday marka Jalaaluddin hadduu qaldamay oo waxa soo dambiye sameeyay waxa ka sii qalad weyn boqorkii Cabbaasiyiinta ninka la yiraahdo an-Nasir lidiinillah diintan uu nusreeyay garamayna ninkaas warqad buu qoray wuxuu qorayaa tataarka uu leeyahay iga caawiya la dagaalanka Jalaaluddin al-Khawarizmi ninka iga caawiya ajiib tataar baa loo yeeranaya oo la leeyahay walaalkay wax iga qabo tolmiyaanu tataarka aqoon wala yaab wuxuu ku shabahay nin muarrikhi hadii tuugu soo galo gurigaaga tuug doonayeen oo alaabooyin dhowr qaato oo aad cararto tuugi weynay tuugta ay soo timaado oo gurigiiba la wareego kii hore ka cararayay muxuu doonayay mobil iyo xoogay dhowr jaajar qaatay iyo Soomaa kan aad u yeeratay laakiin wuxuu sameeyay gurigiina uu la wareegay guriyihii jaarkana uu la wareegay tataarku waa inkaas oo kale Jalaaluddin wax yar buu ku qanacaya laakiin markuu tataar u yeedho dhulkaba way fasaadinayaan isaga iyo cid kale toona reebi maayaan nasiib wanaag tataarku qorshay lahaayeen may haleelay qorshayaal gaar ay wateen may ajiibin iyadoo sidaa tahay oo nimankiina aan dhig jala qusin ninkiina Baghdad ku wareegsan yahay ayuu geeriyooday al-Khalifatu adh-Dhalim ninkii magaca beenta qaatay an-Nasir lidiinillah an-Nasir li hadd nafsi dantiisa ayuu hiilinayay diinu ma hiilinayn waxa qabsaday in la yiraahdo al-Dhahir bi amri Allah oo isagu dhalay boqolkiiba boqol buu ka duwanaa mu'arrikhiintu waxay leeyihiin kaana saalihan nin saalixuha taqiyan alla ka cabsada daa adlin wa ihsan cadaalad iyo samafalo saaxiiba ibn Asir wuxuu leeyahay lam yali ba'da Umar ibn Abd al-Aziz mithlu Umar ibn Abd al-Aziz khaliifkii aha nin lamidoo la daacado la dabeecado la cadaaladi ma qabsanin sadaqadii uu bidiyay dadkii jeelasha ku dulmanaa ayuu soo daayay oo cadaalad siiyay wuxuu qof kasto xaq ka maqnaa buu siiyay ascaartii baa jabtay iyo badeecadii nimco yar baa la galay ninku hadduu mu'arrikh yahay waliba caalim yahay waxbuu sii arkaa ibn Asir wuxuu yidhi inni akhaafu an taqsura muddatu khilaafatihi li'anna zamanana wa ahlihi la yastahiquna khilaafatahu waxaan ka baqanayaa buu yidhi ninkan inaanay muddadiisu dheeraanayn lagu nooliyay ibn Asir xilligaas u qoraya qaabkan uu dhaqmayay nimcadan iyo barwaaqadan iyo khayrkan dadka iyagu ma mutaysa buu waayo waa sunna ilaahi baa sheegay وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ظالمين بالله كوريجيا مفهوم كو محي كو عادلين تانا كو عادلين الله كوريجيا مجتمع هدان حمين عيد حني ما قفصته ما نتي حمادان قبيالد اي ugu rixiyaan u sacabiyaan ayaa mid wala xuniba u soo diyaar garooba wa sunnatullah sheekhu wuxuu ku sii arkay nuurka ilaah wuxuu xadiiskii ahaa اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله سيدي ما ودعده سقال بلود يدور مالمود أيو خلافة قبي قد بحيستي صمو الله وحن كبقنا يا إني مددو قابطه يبا سقال بلودو كليا أيو هيستي مامولكي وقريودي وحقب صدين لنا المستنصر بأمر الله ويولا لهايين إساقني ننكني حكم كوحو يمي حلقا wuxuu ka dhiman doonaa 640 7 sano haysta khilaafa dawla Abbaasiyya 7 sano wax alla wuxuu qabtay lama sheegin ciidan ma dhisin dhaqaale ma kobcinin ummadda ma wacyi gelinin khatarta ku xeeran ma tusin uu iska toosaya iska noolaanaya adoomihiisa ee wuxuu cuni karo wuxuu cabbi karo inuu fardaha fuulo inuu ugaarsado arrimo iska daciif oo iska maynara oo macna lahayn ayuu ku mashquulsanaa Jalaaluddin ninkii la oranayay isaguna sidii buu kolba tuulayar oo qabsanaya ficilkii tataarku sameynaya
بلايي يباسكي بوضع وحاوقود درانو سميي ميلا نادو حصار خلاط ويمكا كنتها الله وقويقا تركيا أيا وحو كسميي وحان لا أروق الله مقال مقالة داسي تتارك أيو قدوميي مدو لدقالميي ينوى لدقالمين وكحوق بطي سيدي بويالي دمر يا عرور يا أضيال يا اللهم إلا واحد أن دمو بروق بسين وحي كلي قبنيين ودن وهو سميي سنة كاسي أيا واحد غيريودي وسنة كي لح بقول يصدح يلا باتن نكي لوريتشين كيس خان مجرم كي وينا إنكار قبيه وحن بدياريه هبيه وأغيريودي عذاب كي إلهي بالله كل ما يا لبي تضواتا سنو أيكو غيريودي مددا كدن بيسي أفر يلا باتن إلى تضبية لاتن وأفر سنة أفر تاسنو نمكي تتاركاها waxay la qabsanayeen maamulka cusub wax weerara iyo wax talaaba ama qaadi xilliga ilaahay qaboojiyay ee arrimuhu degeen waxa la filay dadku nool yihiin in la diyaar garoobo oo la tashado oo la isu yimaado oo lagu talagalo waxa iman doona ma dhicin sidii bay isaga daba mareysanayeen aan ku jiido waa gacmo daalis muslimiintii iyaga Jalaaluddin Qiyasuddin Sa'duddin mid walba diin buu la baxaya diinay wuxuu tarayaana garanaysa magacyadana waxa la wada socda ya Nasir bi amrillah an-Nasir li dinillah al-musta'in bi amrillah وحده بينوي لا يستعين بالله ولا انما يستعين بالشيطان هدو الهي كاشنيو سو مد ما ديسين او جهاد كما امرين او قاليس كما دفاعين تي وا دحدي afartii sanaba waxay kaga dhimatay iyagoo sidaa isugu meereysanay waxay doorteen nimankii tataarka ahaa nin la yiraahdo Oktay ama Okitai ayay doorteen waa 623 markii uu dhintayba afartaa sanadood ninkani arrimihiisu diyaarsanay ciidamadiisu habeynay deetana wuxuu bilaabay inuu wixii Genghis Khan qabtay mooyaane inta kale isaguna dhameystiro laakiin doorkan wuxuu u socdaa jihaanteeni ahayd Russia iyo meelaha ayuu dhaqaaqay iyo Chinaha deetana dhul badan buu jiiray wuxuu sameeyay saddex qiyaado kala duwan qayb waxa uu dhaqaaqday xagga Chinaha xoogay bay ka keeneen laakiin wax badan kama keenin qolada Ruushka xaggeeda loo diray dhul badan bay jiireen oo xagga daba ka sheegi doono qoladii xagga islaamka loo soo dirayna nimankii khawaarismiyiintii dhulkoodii haduu Jalaaluddin kan yahay iyo haduu Qiyasuddin yahay iyo haduu Sa'duddin yahay dhulkoodii bay ku soo dhaqaaqeen waxa loo soo diray nin la yiraahdo Shormajan ayaa loo soo diray ninkaasi dagaal badan lama kulmin markasto la isalo waa ay jabayeen qolooyinkan islaamka sheeganaya iyaguna si leegun bay wuxuu leeynayeen waxna u baabiinayeen aakhirkii ugu dambeeyay Jalaaluddin gabagabadii waxay saleen ninkan hay salaane waxa dhacday in la jabiyo Jalaaluddin laga xoog bato waayo asbaab alquwa mu diyaarsan sunnada ilaahayna maxay dhigaysaa ninka diyaar garooba ee talaabooyin wanaagsan la yimaado Allah isku xidha uu guuleystaa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum mafhum mukhalafu muxuu noqonaya in tansuru dawatakum naftina daawihi lisan ama jeebkiina ama qibaladiina la yansurkum Allah bal yakhzilukum ilahi waydi hoojinaya wala yuthabbit aqdamakum qaacida rasmiga waa sida ninka waa jabay culkiisina waa kala firxaday sidoo maalin kolba inuu uga hadhaysay markii dambe keligii ayaa isku soo hadhay keligii inuu cid la socon wuu isir qariyeeyo waxbuu ismarmariyeeyo dhowr bilood ayuu meelaha iska dhex socday oo cid garanay aakhirkii ugu dambeeyay goor fiida ayuu nin kurdiya oo beeralaya ayuu yimi ninkii oo yar shakisan buu arkay oo martiyaya wuxuu dabcay ninkan inuu haybad iyo xoogay ninka ka yarbajiyo umurana uu wataayo qalab iyo uu ka yarduwayay dadka sidii waxaan ahay Jalaaluddin malikul khawaarismiyiin isagu wuxuu islahaa ninku hayra baqo ha ku kashkashleeyo ha ku shaqeeyo show ninkan ooba walaalkii bay dileen Jalaaluddin iyo culkiis saas ahaayo neef uu qalayo uu wanaajiyo waxbuu siiyo markuu seexday buu faashkiisii doontayo madaxa iyo jirka ayuu kala saaray Jalaaluddin al-Khawaarismi masiirkaas ku dambeeyay
waxaa laga baranayaa oo inuu joogto u ahayn ciraaq oo haysta Saddam Hussein oo kolla halkan isku qaada kolla ka isku qaada dhalinyartan dambe may soo gaadhine waxaynu joognay iyadoo intay gaalo soo weerartay dawladdiisii shicibkiisina barka haysteen siday u eriyeen god yar ka soo saaray god yar oo intuu garku ku baxay falxumadaad yaabayso afka ay kaga qabanayaan dee youtube-yada ka helaysaa god baa laga soo saaray god aakhirkiina waa kuwii daldalay ninka ummaddiisa iyo maqdiraadkooda adeegsan waaya oo damca inuu ummadda ku dul noolaado meesha iyo meel la mida ayuunbu ku dambaynaya waxaasoo dhan maxaa la rabaa ka maanta joogee midida daabkeeda haya inuu wax ku qaato laakiin mushkiladdu waxa weeye in la akhriyo mooyaane cid wax ku qaadanaysaa ma jirto nimankii maxay sameeyeen intii Jalaaludiin haystay waxay ku darsadeen dawladdoodii deetana sidii bay ku socotay aakhirkii ugu dambeeyay waxay soo gaadheen halkii uu soo gaadhay Jalaaludiin al-Khawaarzimi ee Arbil dhulkii oo dhan way soo qabsadeen wax maanta dhan hadaynu wadno aan calool xumo ahayna laga faa'iidi maayo dhulkaas oo dhan sidii bay yeelayeen hay baabiyaan waxay laayaan sheekha weyn ibn al-Athir kitaabkiisa al-Kamil fi taariikh ayaa wuxuu sheegayaa bal doorkan dambe dhacdooyinkii laga qoray ayuu wax ka qoraya ee tilmaamaya ummaddu wali inaanay baraarugin suntii xumeed inay ku mudan tahay adduunyo jacaylkii iyo sii noolowdii inay wali ku mudan tahay ayuu sheegayaa wuxuu sheegay kow tuulo ayaa waxaa soo galay nin keliya oo tataara tuulada dadkeedii midhmidh buu u dilayaa midhmidh qofsi dhaqaajinaya ma jiro wala wada sugaya ilaa uu kii ugu dambeeyey dilay qofsi mu dhaqaajinin waa tuulo dhan waa nin keliya qodobka labaad uu sheegay nin faramadhanoo tataara ayaa nin muslimiin la kulmaya waryaa dhabanka dhulka dhig madaxa dhulka dhig uu dhigayaa seefaan doonaya saasii ahaw ma isdhaqaajinayo ma baxsanayo ma cararayo uu sugayaa waxba haystaa waa xub dunya deetana wuu seeftii buu doontay kurtu ka jaraya u dhaqaajinaya nin buu waraystay isagoo ragga soo badbaadaya qodobka saddexaad wuxuu yidhi aniga iyo 7 nin ayaa meel yaroo luuqa sekad baanu ku dhuumanaynaa nin faras fuushan oo tataaraan noo soo galay wuxuu yidhi amar buu bixiyey waryaa isxidhxidha raggii la socday baa bilaabanaya ninba nin xidhxidho waryaadhe baan kuhi waryaadhe war waa nin keliya see waan baqanayna war kolle wuyna dilayaa baan ku ihi buuri wuyna dilaya way yeeli waayeen may anigaa midi qaatay buu yidhi waan kula booday ninkii baan hanka ka geliyey buuri 17-kaygii aniguba waan baxsanay buuri waanagaa badbaadnay waa nin keliya oo tallaabo qaaday ayay intaas ku badbaadeen 10 iyo 20 iyo 100 iyo dhowr boqol oo saas sameeyeen maxaa la sameyn lahaa waxba iska dhicin lahayn qodob afraad buu sheegaya magaalo la yidhaahdo Badlis oo ku taalla koonfurta Turkiya ayay ag marayaan waxay marayaan meel haadaan oo jaray marayaan qof dumara waxay tidhi haddii 500 oo nin la heli lahaa nimankaa haadaantaasa laga wada tuuri laayo qof kama baxeen 500 baad sheegaysaaye 100 baa la waayey sidii bay ku badbaadeen qodobka shanaad ee la yaab kale waxa weeye nin kastoo muslim ay qabtaan kelmad buu odhanayay laa billaahi laa taqtulnii ilaahay baan kugu dhaariyey hay dilin waxa la yidhi ereyga koobaad ee carabi ay barteen ereygaas u ahaa way nin kastoo dilayeen ereygii buu odhanayay laa billaahi laa taqtulnii markay dadka laayaan ay mariyaan fardaha intay fuulaan bay ciyaari jireen laa billaahi laa taqtulnii bay ku geeraari jireen ereygii koowaad ay barteen laa billaahi laa taqtulnii ilaahay baan kugu dhaariyey hay dilin ayay barteen waa dad bahdii laga siibay oo qalbigii laga saaray sidaa waxaa ku dhammaaday 628 waxa bilowday 5 sannadood oo dambe oo iyadana aan wax tallaaba la qaadin waa 29 ilaa 34 nimankani weerar badan may qaadin muslimiintii hal thawro oo intay kacday nimanka isku xoreysay lama arag hal ciidan oo islaama oo intiis abaabulay ka hortagaya lama arag dhalinyaro la taabarayo lama arag muslimiin midoobayso oo isu imanayso oo walaaloobayso oo cadowga iska kaashanaysa lama arag waxa la yaab leh culimadii xataa aan garan waayay muddada
culimadii xilligaa joogtay culimo intay khudbeeyaan ummadda tacbiyeeyaan u tilmaama khatarta lama hayo waxaan isleeyahay cudurka ummadda ku dhacay ayaa ku dhacaya waxaan isleeyahay waxay ka waramayaan axkaamtoodii iska hooseysay usariga ahayd xaydka iyo nifaaska iyo talaaqa iyo masaa'il tahaarada ku saab iyadoo la liideen masaa'isha laakiin xiliyadeedu likulli maqaamin lahu maqaal xilli walbaaba hadal buu leeyahay xilligan oo kale masaa'isha wax yar baa la siiyaa muddada ah inta kale waxa la siiyaa in ummadda la dhiso hankeeda la dhiso cadowgeeda farta loogu fiiqo si ay waxoogay u soo noolaadaan oo ay noolaadaan maxaa dahaaro bartaa bir baaba lala dul taagan yihin haddii la bireeyo goormuu dahaarsanaya talaaqaad sheegaysaay goormuu shaqaynayaa naftoodii baaba halis ku jirtee waxaasoo xaalada waxba laguma arag ninkii muddadaa uu isdiyaarinayey wuxuu kala diray kooxo fara badan meesha ugu badanuu doorkan awoodda saaraynaa waa dhulka iyo galbeedkii ruushiya raashiya siday u dhan tahay oo lagu qiyaaso 17 milyan oo kilomitir oo square cagtu mariye ilaa iyo Moscow wuxuu gaaray Slovakia meesha nimka la yiraahdo Slovenia imka yiraahdaan waa uu qabsaday Ukraine baa taqaana waa uu qabsaday Poland oo ciyaalkeenii tahriibi jireen ku baranay Poland waa uu qabsaday meesha la yiraahdo Annamsa ama Austria u taqaanaan waa qabsaday ilaa Croatia waxaasoo dhan waxa qabsanaya hal qaa'ido hogaamiye ayaa qabsaday oo dhulkaasoo dhan isu maray marka balaayadu muslimiin kaliya kuma soconine macal kristaanki intaana way leynayaan qabsi kaliya ma wanagi soo maranay al-muwafiq muxuu yiri وكأنهم جاءوا لإبادة العالم وإفناء النوع واحد مودا إلا يلي أمضى أدونك بابية والنوعية إنسان بابية ترتلد مودا نيكي أوكتاي وأوغيريودي وكيل بعض تاتنا نيكي عيدا كوتي ولو رجل باتو ابن جاجي وجوجي علكي وحدوني إنه كقيب قالوا ترتن كمدحني ماذا قراقوم ماشي لا قراقورم وعاصمتودا إلا هالقصو صور دقاق ماشي نبو كجيمي بايدر ليرا ماشي بو صور دقاق محوها يستا يوروب تباريو دن قعنتو كودغي قدو كلابات عالم الإسلامي قيب تباريو دن قعنتي كو هيا قيب تدخه وحي يغو هيستان iyo wixii umara muslimiin oo ducaafiya haystaan ayuu qaybsantaa qaybta galbeed waa Liibiya iyo Tunis iyo wixii ka galbeedeeyay iyada qudhoodu ma dhaanto dawlad daciifa oo dawlad muwaxidiin la yiraahdo ayaa haysata kullu hadhihi waa dhacday waxa kale oo dhacay waxa weey reer Yurub dibka ina gaaray islaamka gaaray iyagana u gaaray haddana inay colaada islaamka joojiyaan may dhicin bal waxay soo diyaariyeen xamlad iyo weerar saliibiya oo Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Jarmalku ay ku mideysay oo u wato boqorkii Faransiisku ay soo diyaariyeen oo ku socda Baytul Maqdis waayo waxay ogyihiin colaada islaamka iyo iyaga ka dhaxeeya waa colal caqiido ama qoladan Tataarku caqiido ma leh waa xarbu ibaada waa xarbu manaafic waa dhulan qabsado dadna laayo cidna ku xoog bato marka labadii colaadood waxa la sahlanaatay tii Tataarka waxa la culus taa muslimiinta ilaahay bana sheegay ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وحكروا عجيبة تتاركوا حلقة مركي اللي سوق علي اسكو ميلان بعد عاي يجي النصارى دي أو كتاي نيكا لو بحيي إيمكا جيريو دي وحد الشيء إسلام نصرانية ده ويفريستين nin la yiraahdo Kuyuk ibn Oktay oo isagu dhalay ayay qaateen ninkaasina wuxuu qabaa gabadh Kristaana hogaamiyaasha badankoodu dumar Kristaana loo guuriyay noocan ma way isku milmeen taas waxay keentay in ninkan cusubi uu joojiyo dagaaladii iyo isballaarintii Kuyuk ninka la yiraahdo wuxuu aaminsan inta aynu hayno aansaan u hayno aan dhisno maamulkeedii kala dambeynta aan hagaajino xabadii iyo weerarkii iyo abuurihii uu joojiyay
intii ay xaaladdu sidaa ahayd ayaa waxa geeriyooday ninkii aynu soo baranay almustansir billah ee boqorka khaliifka cabaasiga ahaaya ayaa geeriyooday 30 jir buu ku geeriyooday 17 waa haystay imsa jir baa lagu cumaamada ya 13 baa madax khaliif laga dhigay muxuu ku qaban 13 waxa loo dhibay nin la yiraahdo almusta'sim billah waa kay dawlad cabaasiya ku soo afmeermi doonto waa tay ku dhamaan doonto isagu nin xun ma ahayn nin quraanka yaqaan tafsiirka iyo fiqiga yaqaan acmaasha khayriga qabta ayuha laakiin siyaasadna ma aqoon la taliyaal xun uu lahaa waxa ka dambeeynu ka sheegi doono la taliyaasha saafa sahaadiyay wax alla wuxuu qabtay ma jirto oo raga dhigta dhiiga loo dari doono dawladda cabaasiyada ku dumi doonto ayuu isagu kow ka yahayba muddada yar waxa kaloo jiray nimankii aan hore u sheegnay xalqadii koobaad ama tii labaad aan idhaahdo ee la yiraahdo ad-dawla al-ismaaciiliya ama al-ismaaciiliya al-baatiniya waa koox shiica qalcado dhaadheer bay leeyihiin ma soo dhaadhacaan dhulkaasay ka sameeyeen beero xashiishadii balaayada ku beeraan niman bay xashiishad ka soo dhargiyaan deetana waxay yidhahdaan muslimiinta madaxdooda iyo culimadooda iyo hogaamiyaasha dagaalka soo dila kolba nin baa la magacaabaa ilaa ragga qaarna waa ku dhinteen imka cimaadiin zanki nuuruddin zanki labaduba gacantooda ku baxeen salaaxuddin al-ayubi laba jeer bay dili gaadheen u dirqi allah ku baxsaday marka nimankaana wali way jiraanoo tataarkana xulafay la noqdeen muxuu sameeyey ninkii kuyuk ibn aktay waxa la soo xidhiidhay boqorkii faransiiska ama aan idhaahdo cafwan boqorkii aan odhanin boobkii talyaaniga albaba innocent الرابع ninka la yiraahdo ayaa wafdi u soo diray sanadkii 643 muxuu ka doonaya laba qodob qodobka koobaad aynu isxulafaysanno idinkiyo tataarku muslimiinta ku wada duulo aan dhulkooda wa qabsanno ta uu guuxay qodobka markuu u guuxay ayaa wafdigii waxay raaciyeen qodob dambe oo ah waxa kaloon ku bandhigaynaa diintaada ka soo baxo taayada kiristaanka soo gal tiibu ka kulaaday wuu diiday bal amar wuxuu ku siiyay amar waxa ku qabtaan dhammaan boqoradiinu aniga halkaa igu yimaadaan qaraaqoram dhammaantood inay daacadiyiin ha cadeeyaan aniga hayla heshiiyaan waxa la yiraahdaa diintaada ka bixiyo diin kala soo gal hadalkeeda daaye aniga madaxdiinu hay yimaadaan marka socodkaasi waa uu fashilmay wuxuu u diray bobki mar labaad muu qancin nin hogaamiye oo bariga u jooga tataarka ayuu warqad u qoray 645kii ninkaasina wuxuu u xamaasadeysnaa islaamka inuu weeraro kiibuu ku yidhi islaamka weerar wuu soo dhoweeyey laakiin waxba tala gacanta uguma jiraanoo boqorkii weynaaye uu ka amar qaadanayay hadduu arrinkaa diiday isna ma dhaqaaqi karo taa labaadna way jabtay xamladii kiristaanka ee reer yurubka ay soo qaadeen iyo weerarkii wuu soo dhowaaday qubrus buu marayaa jasiiradda qubrus halkaasaa haddana waxay sameeyeen safaarad saddexaad ayay soo direen waxay u soo direen hadiyado badan bay u soo dhiibeen waxay u soo dhiibeen ashyaa badan oo qaaliya ninka la yidhaahdo kuyuk ibnu aktay xaaskiisa kiristaan weeye iyaday ku soo hagaajiyeen iyadii baa ka guddoontay odaygeedii ayaa la yidhi u gee odaygiina sho uu xanuunsanayaayo xilligani waaba geeridiis iyadoon weli gaadhin ayuu kan saddexaadna geeriyood waa jinkis khan iyo ninkii oktay iyo kuyuk ibnu oktay saddexaasaa geeriyooday waxa shiray majliskoodii guurtida oo ay u bixiyeen qorilitay wax noocaasa wey guurtidii baa shirtayoo ninka khatarta ah ee jinkis khan noociisiiya ayay magacaabeen oo la yidhaahdo manko khan ninkaasay magacaabeen ninkani kow nimanka kiristaanka xidhiidh buu la leeyahy waa kow oo hooyadii baa kiristaan ahayd waa mar labaadka wuxuu doonayaa inuu dawlad cabaasiya burburiyo uu niyeysay cid ka dhaadhicisayba intii la isdoordooranayay iyo intii arrimaha socdeen muslimiintu ismay bedelin sidoodii bay u fadhiyaan
ولا علباني ديارسن ولا عيدا باني هبيسن ولا عيد بان مدوبين هل كود بيسكفر ليها مع علمائهم وفقهائهم وتجارهم بل هذا كتب تاريخ أخذ دور كاسنو بداية والنهاية وكله سي عادي ودبيعية أيوش كين يا ابن كثير عليه رحمة الله أرنك صار دعي بقر كاك جوابي حنون كاسايمي صدقات بالبيحية رفضان بالآخرية الله تعالى واحد انتني كي شاعر كي قبياقي هبل كلو سوقاي هنا الرماد دبيعية عادية خطرت تتار كي أمورها ما بصوا هذا القادم انت ان كان حق وحبك ايمانين حمله دير قلبيتك ايا دنيا صور عدايو بدا لا يراهدو بدا عد بعض الابر المتوسط ايا صور راعين دميات بكدغين دميات وقويغا مصر دميات بقبصدين وكريستانك حمله دي تدباد وي الحمله السابعه بريغينا تتار با كسو سوده دحدينا وا كون سو ويرري nimankii mactableed ee saliibiyiinta ah dimiyaad markay qabsadeen saxari bay soo dhaqaajiyeen waxay doonayeen ilaa qaahire inay qabsadaan oo doorkan markay masar qabsadaan inay dib ugu laabtaan xagga ay Filistiin iyo Baytul Maqdis qorshoodu saasoo ah laakiin nimankii mamaaligta la oran jiray oo inuu arki doono inay tataarkana jabin doonaan niman dhisan bay ahaayeen sida way dhaameen qolooyinkan ku sheekeynayeen ciidan wacan bay lahaayeen علمنا ووجهت علماء دون أمتي بأبابولي فتاوى صباح ذي تذكي ولا سكود بردي خضب كي ولا جاهد لي نمان كي واحد لجورت كريستان كها سحري ولا جود قال لي ولا جود شبيه تميات ولا جد بتجي تميات ولا جود شبيه تميات ولا جود أنت عند بيت ولا جود شبيه عفوا أي واحد انتي النجم الدين صالح أيوب نيكي علك بوتي وصلاح الدين الأيوبي وأبتر صدا أيا جيريوري دقال كنا وصعدا سلانتو قبي سلان فريدة هاي واحد سلاحات شيكتو بقر كوارد انتي عيدا كويني يتشبيو ولا قاد كان جيريدي بقى قريسة جيريدي أو عمرو بيصدر تاون بقر كحالات في عمبو كتيرة أنا وركي سهايا سدا هلا يالو ويران لوب بلاد يبرد أي ميشة معموليس لا بلاد يبرد سلانتو واحد هذا شجرة الدر لما بلاد يبرد واحد سويسا ويلو دالي أو كده قال لما يقل بيتك إنه يمادو ويل كيف سوق علي كيف يكون رئيسي ماملكي هذا اللي يقول هذا الدولة الإسلامية أما دولة المماليك قف دبري ما قفصتي والله وضع بلاد يبرد أي فرصة كويستي إن عديوجين آخر كبر كونيكي سوق علينا راح يكون ترواروا ميت بوهاي ولا فرسمية كلا يو هلا عص سيالو عص تيميات ويقول استي وحلا قبتي إلا يبقر كيوتي لويس التاسع ولا قبتي محبوس بوها سجال بلود بالهي سجال كبلود نوع الدراسين مسلمين تسوي نولين حتى كتاب القرآن قال الله كيرو آخريه وحبذ الله بحي مركي ده هم ضحفر شو وين بلقى قاتي ولا سيداي حلا يابله مركو نقضي تلكي سيدي بو قبصده هذا أنا حملة دمبو سواء بابولي دونا سيقول لي سابق الله ده حل سواء بابولي حملة دمبه وحل كذا لقى شيء دونه من كوخان مد استياريني وحبلابي دونا حملة دي هو ينيد إلا قاضو وأنا توجه لست بدن عين بدن مقشين بغداد هي الدولة العباسية هي عاصمة الإسلام كا لقوا بابين دونه أيون نكني كوكي هاي هل كسن إن شاء الله وقاعد دونا إله وحن ويديسنا تاريخها فوشحون الله ينهم السعودية مسلمين ترى إله سبحانه وتعالى قولوا يقول إنما الله جارسيو دم بيجينا الله دافو عبارة هنا حينا الله ينقدر القاضي إلهي عيسى إسلام كي شرفتي سأله السعودية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك